الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee caawa qodobadaan idinku wahna waxa kamid ah waxa faahfaahinno dheeraad ah ay ka soo baxayaan dagaalo iyo rabshado qasaare wata oo ka socda magaalada Boorama maalinkii labaad ee gobolka Awdal Somaliland oo war ka soo saartay arrimihii sababay rabshadaha dhimashada sababay ee ka socda Boorama dowladda federaalka Soomaaliya oo dhacdooyinka Boorama ku tilmaantay inay ahaayeen kuwo nasiib darro ah oo laga baaqsan karay iyada oo ay soo baxayaan baaqyo la dirayo haddaba maxaan ka ognahay xeerkan muranka badan ka dhaliyay gobolka ee dhiigga uu ku daatay dowladda Soomaaliya oo dib u dhistay buundada Sabiib iyo Caanole ee gobolka Shabeellada Hoose taasi oo ay burburisay kooxda Al-Shabaab iyo kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo amiirka Qatar oo laga helayo faahfaahin dhammaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinku soo gudbin doonaa wararka Soomaalida ee HBN hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa bisharada niga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur'aankaba ku barbaaray carruurta hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaan ku bilaabi doonaa gobolka Awdal magaalada Boorama oo maalinkii labaad uu ka socdo dagaal wararka ka imaanaya magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka socdo dagaal maalinkii labaad ah kadib markii ciidamada booliiska Somaliland ay isku dhaceen dad careysan oo dhigaya dibadbaxyo rabshado wata waxaana la xaqiijiyay in xaaladdu ay qasan tahay isla markaasina ay socdaan iska horimaadyo xooggan oo sababay qasaare naf iyo hantiyadeed muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq iyo uuro cirka isku shareeray iyada oo dhalinyaro gadoodsan ay gubayaan taayiro bartamaha wadooyinka waxaa sidoo kale la arkayaa kolonyo gaadiidka ciidamada Somaliland oo dhex maraya wadooyin ay yaalaan dhagxaan ayna ka muuqdaan gubasho ka dhashay taayirada halkaasi dadku ku gubayaan sidoo kale ila madax bannaan ayaa soo sheegay qasaare rayid oo ay ku jiraan dhimasho inkasta oo aanu weli si rasmi ah loo xaqiijin tirada marka loo eego goobaha caafimaadka iyo taliska ciidamada Somaliland dhawaqa rasaas culus iyo madaafiic ayaa waxa weli laga maqlayaa qaybo badan oo magaalada ka mid ah iyada oo xaaladdu ay u muuqato mid weli cakiran dhanka kale dhaqaatiirta isbitaalka Boorame ayaa ku tilmaamay xaaladda mid halis ah iyagoo sheegay in xarunta caafimaadka ay isku rogtay waa sida hadalka u dhigeen furin dagaal oo aanu lagu kala socon karnin gudaheeda waxay si degdeg ah ay ugu baaqeen in maamulka magaalada ay ciidamada laga fogeeyo isbitaalka si loo fududeeyo gargaar iyo daryeel dadka ku dhaawacmay ee waxyeeladu ka soo gaartay rabshadaha socda war kooban oo lagu daabacay bogga isbitaalka gobolka Boorama ayaa waxa lagu sheegay laguna yiri shacabka reer Boorama waxa aan ka codsanaynaa in markasta wajahada ama barxadda isbitaalka loo furo gaadiidka gurmadka degdega ambulance si dhaawacyada loo badbaadiyo dhanka kalena xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday maantay in la joojiyo munaasabadii xuska xeer ciise ee lagu qaban lahaa magaalada Saylac kadib markii xiisado sababay rabshado dhimasho leh ay ka dhaceen gobolka Awdal madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ku dhawaaqay go'aankan lagu baajiyay xafladda loo sameeyay xuska xeer ciise oo Khamiistii Somaliland ay sheegtay inay ogolaatay in lagu qabanayo magaalada Saylac madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu sidoo kale uu sheegay inuu taageerayo dadaalada madax dhaqameedka ee lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda isagoo adkeeyay in gogasha nabadda ay muhiim u tahay xasiloonida gobolka madaxweynahan waxaan diyaar u ahay wax kasta oo dhiigga dadkaygu ku baaqanayo wax kasta oo ummadaydu ku heshiinayso iyo wax kasta oo qarannimada Somaliland iyo dadkayga dan u ah maanta
waxaan madaxweyne ahaan joojiyey munaasabadda xuska xeer ciise anigoo ka eegaya danta guud iyo dareenka ummadayda annaga oo u dhega nugul wax kasta oo maslaxad guud ee ummadda ku xidhan tahay iyo inaan dhaawac iyo murkucasho soo gaadhin wada noolaashiyaha dadka walaalaha ah ee reer Somaliland. sidoo kale waxaa socda dadaal kala duwan oo lagu doonayo in lagu dejiyo xaaladda ka aloosan magaalada Boorama iyada oo madax dhaqameedka aqoon-yahanada culimada iyo mas'uuliyiinta xisbiyadu ugu baaqayaan dadweynaha in ay isxakameeyaan oo nabadgelyada ilaaliyaan. madaxweynayaashii hore ee Somaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo Muuse Biixi Cabdi oo kamid ah dadka baaqa soo diray ayaa waxa ay ugu baaqeen in shacabka magaalada Boorama joojiyaan ama ay dejiyaan xiisadda si wada hadal loogu dhameeyo xaaladda cakiran. dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dhacdooyinka Boorama ahaayeen nasiib darro laga baaqsan karay iyada oo soo saartay baaq. warar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka xun tahay qalalaasaha rabshadaha wata ee ka dhacay gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. dowladda ayaa sidoo kale waxay tacasoo dirtay dadka ku dhintay halkaasi. waxaan ugu baaqaynaa maamulka Somaliland in ay u turaan shacabka deegaanka in la dhageysto lana tixraaco dareenka isla markaasina si mas'uuliyad leh loo xalliyo tabashada shacabka lagana dheeraado ficil kasta oo xaaladda uga sii daraya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyada oo lagu sii daray dowladda Soomaaliya sidoo kale waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta guud ahaan ee gobolka Awdal in ay muujiyaan deganaanshiyo lana joojiyo ficilada waxyeeleynaya badqabka iyo sidoo kale xasiloonida magaalooyinka iyo bulshada ku nool intaba isla markaasina wada hadal loo maro xal u helitaanka xiisadda taagan sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. haddaba maxaan ka ognahay xeerkan muranka dhaliyay ee gobolka Awdal buuqa ka abuuray rabshadihiisuna sababeen in dhigo ku daato? hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka ee UNESCO ayaa waxa ay bishii December sanadkii hore 2024 si rasmi ah u aqoonsantay xeer ciise oo xeer qarniyo soo jiray oo ay ku dhaqmaan beesha ciise ee degta dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Soomaaliya. waxaana ay ku dartay liiskeeda waxyaabaha dhaqanka aadmiga la xiriira. sanadkan ayaa la qorsheynayay in sanad guuradiisa lagu qabto magaalada Saylac oo ay beesha ciise ay wax ka degto, taasi oo Somaliland ay ogolaatay Khamiistii toddobaadkii hore, taasi oo keentay in mid ka mid ah beelaha magaalada degan ay ka biyadiidaan arrintan. go'aankan Somaliland ku sheegtay in ay ku ogolaatay qabashada xafladda xeer ciise ayaa ku abuuray magaalada Boorama iyo deegaanada kale ee gobolka Awdal hoostaga in dadweynuhu ay gadoodaan mudaharaadyo rabshado watana lagaga soo horjeesto xafladda xeerkaasi oo qorshihiisu ahaa in la qabto 14 December. mudaharaadkan ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo halkaasi ka socday labadii maalmood ee ugu dambeeyay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyada oo sidoo kalena khasaare kale oo dhanka rayidka uu jiro oo ay ka mid yihiin waxyeello dhanka hantida. wixii ku soo kordhaa arrimaha ku aadan gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe iyo sidoo kale boggeena internetka. balse markan dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dib u dhistay buundada Sabiib Caanole ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo kooxda Al-Shabaab ay dhaxda kaga goysay qarax. dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa dib u dhistay buundada Sabiib Caanole ee gobolka Shabeellada Hoose, taasi oo bishii June ay qarax ay ku burburiyeen kooxda Al-Shabaab xilli ay wajahayeen dagaal adag oo kaga yimid ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AUSAM. buundadan oo kamid ah kuwa ugu muhiimsan ee ku taala webiga Shabeelle ayaa ah mid istiraatiiji ah oo xiriirisa deegaanada Sabiib Caanole. mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dib u dhiskeeda uu door muhiim ah uu ku lahaa dalka Turkiga oo ka taageerayay Soomaaliya mashaariicda dhismaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha. buundadan waa mid kamid ah waxaana ay kamid tahay 5 buundo oo muhiim ah oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyagoo garab ka helaya kuwa AUSAM ay dagaal adag ay u galeen in ay qabsadaan
kana la wareegaan kooxda al-shabaab. haddaba qabsashadaasi iyo dhismaha buundada waxaa warbaahinta u akhriyey wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo xariga ka jiray. buundadii ay dumiyeen in la dhiso waa la dhisay soo maahan mahadsanidin dhaha waa in loo mahad celiyaa dadkii dhisay ciidanka xoogga dalka ciidanka Ugandayska kadibna walaalaha Turkida ayaa dhisay waa idinka calankooda iyo calanka Soomaaliya saaxiibka ah oo haysateen waxa la idinka rabaa haddii magaaladii la idin xoreeyay magaalada waa dayactir wasiirka arrimaha gudaha guddigu soo diri doonaa wixii ay shabaab burburiyeen iyo dhulka qodeen oo dhan la aaso raashin la idin siiyay daawadiina dhaqaatiirtu waa idin joogaan. dayactirka buundada Sibiib Yaxaan oo loo ku taala duleedka degmada Afgooye ayaa qiyaastii 35 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Muqdisho waxaana dib u furisteeda la filayaa inay si weyn u fududeyso isku socodka dadka iyo gaadiidka isla markaasina kor u qaado dhaqaalaha deegaanka maadaama gobolku uu yahay mid beeraley ah. ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Dooxa kula kulmay amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani iyaga oo ka wada qayb galaya madasha Dooxa Forum 2025 kaasi oo isku dhaafsadeen dhinacyadu taageerada amniga iyo sidoo kale qorshayaasha lagu ballaarinayo wada shaqayn labada dawladooda. kulanka labada hogaamiye ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga labada dal. madaxweyne Xasan Sheekh iyo Amiir Tamim ayaa si qoto dheer uga wada hadlay sida ay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay mashaariicda horumarineed taageerada amni iyo qorshayaasha lagu ballaarinayo wada shaqaynta labada dawladood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay amiirka Qatar taageerada joogtada ee ay dawladda Dooxa siiso Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada dib u dhiska dhaqaalaha iyo amniga. sidoo kale waxa uu muujiyay madaxweyne Xasan Sheekh sida uga go'an tahay si adkeynta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi istiraatiijiga ah ee labada dal. waayahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii Soomaalida caawa HBN oo idinkaga imaanaya studiyihiisa labaad. wararkeena waxaad kala socon kartaa boggeena sida Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram iyo bogga internetka oo ku leenahay hbnonlinetv.com. waa inoo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo insha Allah. bishaaro